Peace TV, the solution for humanity. The Muslim brethren in India, why do they refrain from saying Vande Mataram? 112 years old guy got married, 13-year-old girl, Safiya. What is the concept of soul? Your scholarship is very profound. I would like to be benefited by it. That if you have any questions regarding Islam and comparative religion, this is the opportunity to question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. anigoo ku hadlaya magaca hay'adda Islamic Research Foundation farxad ayay ii tahay inaan caawa halkan idinku soo dhaweeyo oo ah kulankeenii sagaalaad ee caawa halkan Mumbai ku yeelanayno waxa aynu kala fadhigan caawa ku bilaabanaynaa ayada quraan oo inoo akhrin doono Sheekh Saalax Budayri oo ah imaamka iyo khadiibka Masjid Nabawiga kaasoo Madiina ku yaala Sheikh Salah al-Budayri. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. daawadayaal haddaba mawduuceenana caawa iyo kulankeenana waxau noqon doonaa waa qayb u go-an oo keliya su-aale iyo jawaabo. qof walbaana xorriyad ha dareemo, niyadsamina ha dareemo, wax walbo maskaxdiisa ku jirana oo uu dadyoga kale kala cabsan jiray caawa Dr. Zakir Naik ha weydiiyo. anigoo Dr. Maxamed Naiga ayaa caawana kalfadhigeenan inoo hogaamin doona. haddaba aynu soo Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My respected elders and my brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. sanadadii u dambeeyay waxaa la codsanayay maadaama badanaa markaan khudbadaha aan jeedinayo inta aan marka hore aan jeediyo khudbad 1 saac iyo 1 saac iyo badh ilaa 2 saac soconaysa intaas kadibna haddana su'aalaha dadka loo furi jiray muddo badan markaa waxaa la codsanayay oo la oran jiray maxaana loogu furi waayay kalfadhi siduu u dhan yahay su'aalo iyo jawaabo ah. sanadkan haddaba arrinta ayaanu ku fikiray oo waxaanu markaa bilownay inaanu sameyno kalfadhiyo waaweyn oo su'aaliyo jawaabo kaliya la isku weydiinayo. fursadana caawa haddaba waxaan horseyn doonaa dadowga martida inoo ah ee muslimiinta ahayn. waxaana idin leeyahay caawa fursadiinii su'aal walba ood qabtaan oo islaamka ku saabsan oo maskaxiina ka guuxaysa waad weydiin kartaan. xataa haddii aad rabto inaad eedayn soo bandhigto oo leedahay tacaaliimta islaamka wax qodobka iyo qodobka kuma raacsan haddii aad leedahay waad soo bandhigi kartaa. aniguna intii karaankayga ah maadaama oon da'yarahay waxaasoo dhan waan u dulqaadan karayaa. waxaan isku dayaa cilmiga kooban ee leeyahay inaan intii karaankayga ah aan ku jawaabo. Jazakallah shukran. If the questioners are ready at the mic, we'll start. We have one mic in the front for the gents there, one in the middle and one in the rear section. 3, if you can see, first, second, third. For the ladies, we have one mic in the center right in front of me for the ladies and one on the right hand side. Both are in the front. Maybe start with the first question on the mic on my left. Yeah, Dr. Naik. Dr. Naik, marka hore farxad bay ii tahay inaan hortaada aan taagnaado waayo barnaamijyada Peace TV baan ka daawan jiray. magacayguna waa Mahesh. haddana waxaan ahay arday diyaarinaya PhD-ga ee jaamacadda Mumbai oo philosophy-gan ayaan PhD ka diyaarinayaa. su-aashaan doonay inaan ku weydiiyana waxa weeye maxay tahay aragtida oo islaamku uu ka qabo nafta
waayo waxaan ognahay in indiyaan badani falsafad ahaan ay caqliga iyo maskaxda ay kala qaadaan halka ay reer galbeedku iyaguna caqliga iyo nafta ay mid ka dhigaanay isku qaadaan. sidaa darteed su-aasheedii koowaad waxa weeye maxay tahay aragtida uu islaamku uu nafta ka aaminsan yahay. su-aasha labaadna waxa weeye waa maxay xiriirka ka dhexeeya jidhka iyo nafta. qofkuse marka uu dhinto naftiisu jidhka may ka baxdaa. waadna mahadsan tahay. Thank you. Brother Mahesh has asked the question. walaalkan meeshi waxaana weydiiyey maxay tahay aragtida islaamku uu ka qabo ee uu ka aaminsan yahay nafta, maxayse tahay xiriirka ka wada dhexeeya jidhka iyo nafta. sidoo kale naftu markay dhimato maxaa ku dhaca. haddaba nafta haddaan ku horeyno, horta naftu waa jidhka bini aadamka waxaa micnaha iyo ujeedada u yeelayaa. jidhkana waxa u muhiimsan ee jidhka dhan xataa micnaha u sameynaya waa nafta. naftaasina xataa baaqi bay ahaanaysaa qofku markuu dhinto. xagga dambaan kaaga sharixi doonaaye. haddaba bal haddaan xagga sayniska aan ka eegno, saynisku horta nafta kama hadlo ilaa haddana saynisku awood muusan u yeelanin, manuusan gaadhin oo awood uma laha maanta inuu ka hadlo oo uu qeexo nafta iyo micnaha naftu waxa ay tahay. laakiin ilaa hadda waxaa jiray cilmibaarisyo la sameeyey. cilmibaarisyaana waxaa lagu sameeyey oo la isbarbar dhigay qofka bani aadamka ah ee dadka ah iyo xayawaanaadka kale maadaama labaduba ay naf leeyihiin. waxaana la ogaaday oo markii cilmibaaris lagu sameeyey la arkay xayawaanku marka uu nool yahay iyo marka uu dhinto labada jeerba marka la miisaamo ee cabirka la saaro culayskiisa waxba iskama dhimo. laakiin qofka bani aadamka ah marka uu nool yahay iyo marka uu dhinto waxa farqiba u dhexeeya culayskiisii oo qofku markuu dhinto culayskiisii waxbaa ka dhaca oo waxbaa hoos uga dhacaya. taasoo dabcan saynisyahanada tusinaysa in qofkan bani aadamka ah naftii ku jirtay jirkiisa culayska ku jira qayb ka mid a ay naftu ka qayb qaadanaysay. laakiin haddana saasay tahay ilaa maanta ilaa casrigan saynisku awood muusan u yeelanin, manuusan weli gaadhin oo awood uu kaga hadli karayo naftaasi markaa waxa ay tahay. sidaa darteed naftu waa micnaha qofka bani aadamka ah. qur-aankuna waxa uu leeyahay suuratu aali cimraan suuradda 3 aayadda 185 kullu nafsin daa'iqatulmowt, naf walbaaba way dhimanaysaa. noloshan adduunyaynu maanta joognaana waxay imtixaan u tahay nolosha aakhira ee dambe. ilaahayna waxuu qur-aanka ku yidhi suuratu mulk suuradda 67 aayadda 2 ilaahay waa ka abuuray nolosha iyo geerida si uu idinku tijaabiyo oo idinku imtixaano midkiina camalka wanaagsan samaynaya. sidaa darteed noloshan adduunyo siday u dhan tahayba waxay imtixaan u tahay nolosha dambe ee iman doonta. sidaa darteed maadaama ay nolol dambe jirto naf walba oo marka adduunyadan ku dul nooli way dhimanaysaa. sidaa darteed maalinta qiyaame naftii qofka way soo laba noqonaysaayo ilaahay baa dib usoo laba noolaynayaa. qofkii bani aadamka ahaana intii uu adduunyada joogay hadduu camal xun sameeyey iyo hadduu camal wanaagsan sameeyey isagoo loo eegayo markaas ayaa wixii uu mutaystay oo janno ama cadaaba markaas ayaa midkood la gelinayaa. sidaa darteed xiriirka markaa jidhka iyo nafta ka dhexeeya waxa weeye qofka bani aadamka ah ayaa ka kooban jidh iyo sidoo kale naf. laakiin noloshan adduunya marka laga tago ee nolosha dambe la tago qofkii bani aadamka ahaa jidh cusub baa la siinayaa, naftiisiina waa la gelinayaa uun. sidoo kale su-aashaadii kale ee ahayd nafta iyo caqligu ma isku mid baa, jawaabtu waa maya. caqliguna horta waxaad ogaataa inuu yahay shay sida fikir ahaan oo kale u jira laakiin uusan ahayn shay la taaban karayo oo sida maskaxdoo kale ah. caqligu ma aha, waayo dad badan baa waxay u maleeyaan marka caqli la yidhaahdo maskaxday u maleeyaan maskaxday taabtaan, laakiin caqligu maskaxda ma aha. caqligu waa shay qofka bani aadamka sida fikradoo kale ugu dhex abuuran oon la taaban karinin weeye. aniguna dabcan hadda ma garanayo caqligu jidhka meesha uu kaga jiro ma garanayo. waxaan rajaynayaa inaan su-aashaada ka jawaabay. Thank you. Yes, brother. Hello, my name is Mahesh Mehta. magacaygu waa Mahesh Mehta. haddana waxaan ahay qof howlgaba. su-aashaydana waxa weeye waxaan booqday 15 wadan oo muslimiina. meel walbana waxaan ku arkay ragga iyo dumarku markay tukanayaan masaajidda meel kala baxsan bay ku kala dukan yihiin oo iskuma dhex jiraan. masjid nabawiga haddaad tagto ragga iyo dumarku meesha ku kala tukanayaan way kala duwan yihiin. magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Karbala, Dimashq, dhammaantood ragga iyo dumarku meesha ay ku tukanayaan way kala duwan yihiin. laakiin waqtiga xajka khaasatan marka Mina iyo Musdalifa la joogo, sidoo kale Carafa, Safa iyo Marwa, iyo sidoo kale marka Kacbada la dawaafayo ragga iyo dumarkii way isku dhex jiraan. sabab Women are together. Why? Brother Mahesh Mehta has asked a good question. walaalkan meesh su'aal wanaagsan bayna weydiiyey. meeshna dabcan sanado badan baan aqaanay.
ilaa markii aanu aasaasnay IRF Islamic Research Foundation 1991 ilaa waqtigaa wuu nala socon jiray, cajalado badanna waqtigaa wuu naga qaatay. xataa maanta waxaan filayaa cajaladaha uu IRF uu naga haysto in xataa muslimiintu intaa in leeg aysan naga haysanin. su-aashiisuna hadda waxa weeye meelo badan oo wadamada muslimiinta ah ayuu tegey, waxaanu ku arkay goobaha ay ku tukanayaan ragga iyo dumarku inay kala saaran yihiin, aysan isku mid ahayn. laakiin xajka khaasatan mina, Musdalifa, kacbada dawaafka, ragga iyo dumarkii way isku dhex jiraan. sababtoo maxay markaa leeyahay? marka walaal waxaan kuu sheegi lahaa, horta marka xajka la joogo meesha iyo goobta lagu tukanayaa ee loo soo jeesanayaa waa hal goob oo kaliya, waana hal meel uun, meelo badan ma aha. tusaale ahaan dawaafka marka la sameynayo meelo badan laguma sameyn karayo, oo qof walba meeshuu doono dawaafka ma sameyn karayo. hal goob iyo hal meel kaliya ayaa dawaafka lagu sameynayaa. taasina waa sababta marka dawaafka la sameynayo dadkii aan kala odhan karaynin idinkuna raggoona xaggan mara, dumaruna halkan mara aan la odhan karaynin. laakiin dawaafku marka uu dhammaado ee dawaafka laga baxayo, ragga iyo dumarku goobo u kala qayiman oo kala duwan bay kala leeyihiin. taasina waa sababta dawaafka isagoo la sameynayo waqtiga salaadu marka uu gaadho, dumarka qaar ka mid ah intay ka gaari waayaan meeshii dumarka loogu talagalay ayaa markaas waxay istaagaan ay ku tukadaan meel kale oon dumarka loogu talagelin, laakiin markii hore meel gaara loo sameeyey inay ku tukadaan iyaga. sidoo kale xataa Mina iyo Musdalifa markaad eegto kuma arkaysid rag iyo dumar hal saf oo isku mid wada taagan, laakiin meeshu waa meel balaaran oo weyn. dhammaan dadkan xajka isugu wada yimidna waa dad isla socda, dad baa qoysaskoodii la socda. markaasoo kale markaa lama odhan karayo labadaas saf hala kala galo, meelaha hala kala tago lama odhanayo. laakiin meeshu maadaama meel balaaran tahay, qof walbaaba meeshuu doono u istaagi karayo, markaasaa laga yaabaa inay meel ku wada tukadaan in qoys ah oo isla socotaa. waana sababta u arkaysa markaa Musdalifa, Carafa marka la taagan yahay rag iyo dumarkii isku dhex jira. dabcan dadkani waa dad qoysas isla socda. haddii la dhaho hala kala saaro oo meelaha hala kala tago, dadii qoysas ah oo isla socday baa iswaayaya. laakiin islaamka dhexdiisa mar walba ragga iyo dumarka waxaa sharciya in la kala saaro. marka la kala saarayana kama dhigna inay kala hooseeyaan, laakiin waa dad isku mid ah. sababta laakiin loo kala saaraya waxa weeye, waxaa la rabaa, maqsadku waxa weeye dadku inay cibaadada Ilaahay ay u khushuucaan, ay cibaadada diiradda saaraan. laakiin haddii la isku sii dhex daayo iyagoo aysan isku mashquulin, waxaan rajaynayaa soo sheeg ka jawaabay. Hope that answers the question, brother. Yes, brother. Before posing my question, intaana su-aasheeda soo bandhigin ka hor, marka hore waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo dadyoogii hawshan soo qaban qaabiyey. haddaan su-aasheeda markaa u imaado, dabcan anigu horta muslimiin badan baan la dhaqmay, ilaa dhallinyarnimadeydii muslimiin baan la dhaqmayey. haddana intaasoo dhan waxaa jirtay su-aal in badan maskaxdayda ku jirtay, su-aashaasna ilaa hadda maan fahmin. marka horta qeexitaanka ilaahay ama ilaahay marka la qeexayo, sida aan marka hore anigu aan u qabo ka aaminsanahay maskaxdii xataa ku jirta, dadyo muslimiina oon la kulmayna ay iigu sheegeen, badanaa waxaan u arkaa ay iila muuqataa qeexitaanka ilaahay in marka ilaahay la qeexayo badanaa la sameeyo in horta diimaha kale ee dadyo kale aaminsan yihiin in marka koowaad meesha laga saaro, mana aqbalaan markaa dadyo kale qaabkay ilaahay u qeexanayaan markaa ma aqbalaan. marka Dr. Saakir, adiga ayaa diimaha badanaa aqoon u wada leh, marka waxaan doonayaa bal arrinta inaad ii faa'iidayso. would like to be benefited by it. The brother asked a very good question, very important question. walaalkiin su-aal wanaagsan oo muhiima ayuu ina weydiiyey. waxaana doonayaa in arrin badanaa maskaxiisa weydiin jirtay inuu ogaado. waxaana leeyahay waa maxay qeexitaanka ilaahay? ilaahayse see loo qeexi karayaa? islaamkuna wuu yidhi siday ilaahay u qeexayaan badanaa waxa ay meesha ka saaraan diimaha kale, iyo dib waxay aaminsan yihiin qaabkay wax u qeexaan bay meesha ka saaraan, mana aqbalaan diimaha kale qaabkay wax u qeexanayaan. marka su-aashaada haddaan ka jawaabo walaal, horta marka koowaad islaamku markuu ilaahay qeexayo, marka koowaad waxa uu sheegaa ilaahay horta waxa uu yahay iyo waxa uusan ilaahay ahayn, saasuu u kala qeexaa. marka hore waa muhiim horta inaad ogaato ilaahay waxa uu yahay, haddana sidoo kale waxaa sidoo kale muhiima inaad haddana aad ogaato ilaahay waxa uusan ahayn. sidaa darteed labada qeexitaan marka aad wada fahanto, waxaa durba kuu cadaanaysa haddii qof kamida uu ilaahnimo uu sheegto ama wax kale ilaah lagu sheego, inaad marka qofka waxa loogu sheego isla markada waxa kuu cadaanaysa qofka ilaahnimada sheeganaya iyo waxa ilaahay lagu sheegaya inuusan ilaah ahayn baa kuu cadaanaysa.
sidaa darteed qof muslim haddaad weydiiso waa maxay ilaahay, qofka muslimka ay jawaabta ugu fiican ee uu ku siin karayo qur-aanka ayaa lagu sheegay suuratu ikhlaas suuradda 112 aayadda 1 ilaa 4 suuradaasoo odhanaysaa qul huwa allahu axad, waxaad dhahdaa ilaahay waa keligii, allahu samad, ilaahay waa mabaahdaha loo wada baahan yahay, lam yalid walam yuulad, lamana dhalin waxna muusan dhalin, walam yakun lahu kufuwan axad, wax alla la mid ahina ma jiro. u fiirsa markaa qeexitaanka kooban ee qotada dheer ayuu islaamku ilaahay ku qeexaa oo waxa uu leeyahay ilaahay waa keligii, ilaahay waa mabaahdaha loo wada baahan yahay, ilaahay lamana dhalin waxna ma uusan dhalin, ilaahay wax la mid ahina ma jiro. sidaa darteed wax walba oo la dhaho waa ilaah. haddii markaa afartaa qeexitaan uu buuxiyo, annagu haddaan muslimiin nahay wax cuqdad ah uma qabno, kamana soo horjeedno waxaa shayga ilaah lagu sheegaya inuu ilaah yahay, kama soo horjeedno haddii uu afartaa qeexitaan uu buuxiyo. sidaa darteed wax walba oo ilaah lagu sheegayaa haddii uu yahay mid keli ah, haddii uu yahay mabaahdo loo wada baahan yahay, sidoo kale haddii uu yahay shay aan la dhalin isna aan wax dhalin, sidoo kale haddii uu yahay shay wax la mid ah uusan jirin, shaygaas anagu inaanu ilaah u aamino waxba kama qabno. sidaa darteed bal hadda aan tusaale ku siiyo, waxaa jira dadow hinduuga kamida qayb kamida kuwaasoo dhaha Bhagwan Rashnesh waa ilaah. sidaa darteed bal Bhagwan Rashnesh afartan qeexitaan bal aynu ku dhererino oo afartan qeexitaan aynu ku eegno inuu kasoo baxayo iyo in kale. sidaa darteed qeexitaanka koobaad waxaa dhahdaa ilaahay waa keligii. sidaa darteed Bhagwan Rashnesh ma keligiiba, ma qofka keliya ee jiraba? sidoo kale Bhagwan ma qofka keliya ee ilaahnimo sheegtayba? dabcan waa maya, kumanaan kun oo qof oo kale oo ilaahnimo sheegtay baa jira. sidaa darteed qodobka koobaad Bhagwan muusan kasoo bixin. haddana waxaa laga yaabaa qof kale inuu dhaho alla maysaa maaha, Bhagwan waa gooni, dadka uu ka duwan yahay inaad dhahdaa laga yaabaa. okay, aan ku waafaqaba inaad saa dhahdo dadka kale uu ka duwan yahay. bal qodobka labaad aynu eegno, Bhagwan mabaahdaha loo wada baahan yahay miya? sababtoo ah Bhagwan markaan taariikhdiisa aan akhrino waayo taariikhdiisa wanaynaa waxaan ku arkaynaa Bhagwan inay hayeen cudurro ay kamid yihiin xiiqda iyo macaanka iyo waxaad ka warantaa ilaah xanuunsanaya oo xiiq iyo macaan iyo uu hayaa, bal ka waran. haye qeexitaanka saddexaad oo ah lamana dhalin waxna ma uusan dhalin. Bhagwan waxaan ognahay dabcan in la dhalay baan ognahay. Bhagwana hooyo iyo aabba ayuu lahaa. 1981kiina America ayuu tagay, meelba markaa u furtay, kumanaan kun oo qof baa markaa ku beeray, waxaana ma abuuray markaa kacdoomo. markii dambena xarun ayuu furtay, markii dambena dowladdii Mareykanka ayaa qabatay waana la xidhay. Bhagwan Rashnesh markaa waxa Mareykanka uu ku eedeyn jiray oo odhan jiray Mareykanku sun bay isiiyeen buu odhan jiray. bal qiyaas ilaahay oo ka calaacalaya Mareykankii oo sun siiyey. weliba 1985kii Mareykanku wadankoodii bay ka soo eriyeen. India ayuu markaa ku soo noqday, magaaladii uu ku dhashay markaa dib ugu noqday. xarun buu waqtiga markaa halkaa ka furay oo ilaa maanta jirto Osho Kashim ilaa maanta la yiraahdo. maantana meeshii uu ku dhintay intii markii la gubay lagu aasay dambaskiisii ayaa markaa waxaa jira dhagax halka lagu qoray oo leeyahay Osho, oo isaga Bhagwan laga wado, oo leeyahay Osho manuusan dhalanin manuusan dhimanin, laakiin adduunyada waxa soo booqday intii u dhaxaysay 1931 ilaa 1990 saas ayaa ugu qoran meesha. laakiin waxay iloobeen ay dhagaxa ku qori waayeen in markii adduunyada imanayay in 22 wadan oo adduunyada kamid ah in loo diiday in fiisaha la siiyo oo uu soo galo in loo diiday. bal waxaad qiyaastaa ilaahay oo adduunyada imanaya oo wadamada qaar fiisa weydiisanaya inuu soo galo oo wadamadii ay u diidayaan. qeexitaanka ugu dambeeya walam yakun lahu kufuwan axad, wax alla la mid ah oo alla u dhigmaa maba jiro. dabcan waana qeexitaanka ugu adag. mar walba oo shay ilaahay barbar dhigto oo dhahdo ilaahay waa sidan, ilaahay waa sidan oo kale, isla markadaaba inuusan ilaahay sidan ahayn ayaa kuwa cadaanaysa, sababtoo ah shay alla la mid ah maba jiraba. marka Bhagwan waxaan ognahay bini aadamka kale uu ahaa, garcad buu lahaa, 2 indhood buu lahaa, san buu lahaa, hal af buu lahaa, 2 gacmood buu lahaa, aduu sida bini aadamka kale ayuu ahaa. sidaa darteed lama oran karayo Bhagwan cid la mid ah ma jirto, lama oran karayo. sidoo kale walaal su'aashaada qaybta labaad oo imaado oo ahayd qeexitaanka islaamka uu ilaahay uu saaro maxay uga hortimaadaa diimaha kale. runtii markaa horta arrintani xaqiiqo maaha, laakiinse waa khalad fahan. dad badanna waxay u malaynayaan aragtida uu qur-aanku ilaahay uu ka aaminsan yahay ee uu ka qabo inay ka duwan tahay diimaha kale waxay ka aaminsan yihiin, saasay dadku u khalad fahmaan.
laakiin qeexitaanka uu ilaahay oo islaamku uu ilaahay uu saaraa waxa uu ka duwan yahay oo uu ka soo horjeedaa dadyowga diimaha ku dhaqmaa ee u nisba sheegtaa waxay ku dhaqmaan buu ka soo jeedaa, laakiin diimaha kale waxa kutubtooda ku qoran kama soo horjeedo. sababtoo ah badanaa inta ugu badan dadyowga diimaha kala haystaa ama hindu ha noqdaan ama sikhism ha noqdaan ama yahuud ama ha noqdaan kristan ha noqdaan, badanaa ma akhriyaan kumana dhaqmaan kutubtooda waxa ku qoran, waxayse raacaan dadka qaysaska u ah ama guruga u ahi waxay u sheegaan ay diinta uga dhigaan unbay raacaan. sidaa darteed haddii aad rabto inaad ogaato diini ilaahay waxay ka aaminsan tahay iyo fikradda ay diini ilaahay ka qabto iyo qaabka ilaahay u qeexdo, inaad dadka diinta u nisba sheeganaya qaabka u dhaqmayaan aad eegto maaha, waxaase mudan inaad fiiriso kutubtooda waxa ku qoran. tusaale ahaan waxaad doonaysaa inaad ogaato sikhismku iyo dadka u nisba sheegtay diintaas ilaahay waxay ka aaminsan yihiin baad doonaysaa inaad ogaato, bal kutubtooda markaa akhri. sababtoo ah haddaad akhrido kitaabka sikhismka ee Guru Granth Sahib volumeka 1 ama mujalladka 1 cutubka 1 aayadda 1 waxa uu leeyahay Jabuji, waxa uu leeyahay ilaahay waa keligii, ilaahay waa xaq. sidoo kale waxa oranayaa ilaahay waa mid weligiiba jiraya, ilaahay sidoo kale waxa oranayaa wax walba xumaana uu ka nasahan yahay. sidaa darteed sikhismka markaa dad kitaabtooda aad eegto waxay aaminsan yihiin inuu jiro hal ilaah oo keliya, sidoo kale mana aaminsana xataa sanam caabudka. sidoo kale kitaabka hinduuga dad akhrido waxaad ku arkaysaa sifooyin fara badan oo ilaahay loo tiirinayo oo ilaahay sifooyin loo yeelayo, oo sikhismku ilaahay waxuu ku sifeeyaa Satanama oo ka dhigan oo muujinaya magac barakaysan. sidoo kale waxuu ku sifeynayaa Kartaar oo ah khaaliqa. sidoo kale waxuu ku sifeeyaa ilaahay inuu raxiim yahay. sidoo kale waxuu ku sifeeyaa ilaahay inuu kariim yahay. sidoo kale ilaahay waxaa ku sifeeyaa inuu yahay ilaah xaqa ah. sidaa darteed kutubta sikhismka dad akhrido waxaad arkaysaa aragtida islaamka iyo sikhismka ilaahay uu ka aaminsan yahay inay isku mid tahay. sidoo kale hinduusamka xataa hinduusamka dad akhrido kutubta hinduuga haddaad akhrido sida lagu sheegay kitaabka Upanishadka Chandoganya Upanishadka cutubka 6 qaybta 2 aayadda 1 ikam ifadatim ilaahay waa keligii wax labeeyana ma jiro. sidoo kale waxaa lagu sheegay kitaabka Sadrastra Upanishadka cutubka 6 aayadda 9 naasaje kasaj kanitha kaniba oo ah ilaahay wax waalid ah ma laha, wax ka sarreeyana ma jiro, rabbi kaloo isaga ka weynana ma jiro. sidoo kale waxaa lagu sheegay Sadrastra Upanishadka cutubka 4 aayadda 19 iyo sidoo kale Yajurveda cutubka 22 aayadda 3 naajase bathima asti ilaahay wax bathima ma laha. bathimana dictionary-ga Sanskrit-ku waxa uu ku macnaynayaa oo uu leeyahay waa sanam ama sawir ama taalo, oo markaa ka dhigan ilaahay wax sawir sanam iyo taalo midna ma laha. haddana saasay tahay nasiib darro waxaad arkaysaa dadkii hinduuga ahaa oo haddana sanam samaysanaya oo sanam caabudaya. marka bal yaa mudan in la eedeeyo. anu hadda waxaan kusoo qaadanaya waa Vedasku waa kutubta hinduuga kitaabka ugu sarreeya ee ugu saxiixsan weeye. haddana saasay tahay kitaabkoodii ugu weynaa ee ugu sarreeyey isagoo waxaas sheegaya oo oon ogoleen ayaa haddana dadkii hinduuga ahaa weli sanamkii caabudaya inay sanam samaysanayaan. sababta markaa ma garanaysaa? sababta waxa weeye dadkoodan hinduuga dadkoodan culimmada u ah ee ay raacsan yihiin baa odhanaya may saas ma aha. aniga xataa waxay ku dhahaan Dr. Saakir saas ma aha, si aad keenin dadkana iminka waa bilow waxba ma fahansana, marka hore bal sanamka ha caabudaan oo halka ha u soo maraan si marka dambe ay ilaahay u caabudaan. oo waxay dhahaan qofku markuu weynaado ee xataa taqwadiisu korto markaasuun sanam u baahanaynin oo toos ilaahay u caabudayaa. sidaa darteed anigu dadka culimada hinduuga ah ee dadku raacsan yihiin waxaan ku odhan lahaa anigu haddaan muslimiin nahay heerkaa sare ee rajaynaysan anagu mar hore ayaanu gaarnay, wax sanama ma caabudayna, ilaahay baanu toos u caabudaynaa. marka hadda waxaan arkaynaa in aasaasiyaadka ay hinduusamka ku fadhido inaysan sanam ogolayn. dabcan hinduuda dhan isku mid ma aha. iminka qayb ka mid a hinduusamka Arya Samaj iyo gebi ahaanba wax sanama ma caabudaan. sidoo kale kristanka dad akhrido diinta kristankuna iyo kutubtoodu ma ogola in sanam caabudka iyo waxaa la samaysto. haddana waxaad arkaysaa Catholicii oo ilaahay sawir ka samaysanaya oo haddana iyagoo odhanayd arkaysaa ciise waa ilaah. maantana kristanka inta ugu badani waxaad arkaysaa iyagoo ku andacoonaya ciise inuu ilaahnimo uu sheegtay, laakiin bibalka dad akhrido kama soo helaysid hal aayad oo toos ah ay toos uga caddahay oo ciise uu leeyahay intuu toos u hadlo uu odhanayo ilaah ayaan ahay ama uu ku odhanayo aniga hala i caabudo ma arkaysid. sidaa darteed kristanka maanta waxaan ku caarinayaa haddii ay bibalka iga tusi karayaan aayad
toos ah oon wax muran ah uusan ku jirin midmadow uusan ku jirin aayad cad hadday iga tusi karayaan oo bibalka ku jirta oo ciise uu odhanayo ilaah baan ahay ama ciise odhanaya aniga la caabudo aayadda haddaad iga tustaan waxaan diyaar u ahay inaan kiristaannimada aqbalo laakiin xaqiiqatan haddaad bibalka akhrido kitaabka Gospel of John waxaa lagu sheegay cutubka 14aad aayadda 22aad ciise odhanaya ilaahay aniga waa iga weyn yahay sidoo kale Gospel of John cutubka 10aad aayadda 9aad ilaahay dhammaantiin waa inaga wada weyn yahay kitaabka Gospel of Matthew cutubka 10aad aayadda 8aad shaydaanka waxaan ku saaraa ruuxda ilaahay Gospel of Luke cutubka 10aad aayadda 20aad ogolaanshiyaha ilaahay ayaan shaydaanka ku saaraa Gospel of John cutubka 5aad aayadda 30aad naftayda anigu waxba uma qaban karayo wixii aan samaqle ee ii waxyeedo baan xukmiyaa oon sheegaa waxaan sheegana waa xaq arrin walbana doonista ilaahay baan ku qabanayaa ee doonisteeda kuma qabanayo qof walba oo markaa dhaha wax walba idamka ilaahay baan ku qabanayaa dhaha qofkaas waa muslim sidaa darteed ciise muslim buu ahaa ciisena weligii marnaba muusan sheeganin inuu ilaah u yahay sidoo kale sida lagu sheegay Book of Acts cutubka 2 aayadda 22aad reer bani Israa'iil u dhageysta ciisihii naasireed ahaa oo ah ninuu ilaahay uu idinka dhex doortay kaasoo la siiyey oo lagu xoojiyey mucjisooyin kuwaasoo ilaahay uu siiyey idinkuna aad markhaati ka tihiin u fiirso nin uu ilaahay uu idinka dhex doortay oo la siiyey mucjisooyin kuwaasoo ilaahay uu ku ayiday idinkuna aad markhaati ka tihiin sidaa darteed bibalka haddaad akhrido kiristanka xataa judaysmka ama yahuudda waxay aaminsan yihiin hal ilaah oo keliya oo xaq ah khaasatan waxaa lagu sheegay kitaabka Book of Deuteronomy cutubka 5aad aayadda 7 ilaa 9aad ha yeelanina oo ha samaysanina ilaah aan aniga ahayn wax sawir iyo taalo qabri aan hayga samaysanina hana samaysanina waxa aad ilaahay ka matalaysaan oo u sujuudaysaan ha samaysanina waxyaabaha ilaahay qeyrkii la samaysanaya loo sujuudayo ilaahay waa uu ka hinaasaa waxaan rajaynayaa su'aashadan ka jawaabay. Thank you so much. And you said it for me because the definition of God as it is tallies exactly with Islam, whatever we have in Sikhism, you know. We'll have the next question from the gents mic in the middle. We'll call that mic 2. This is mic number 1. That is mic number 2 in the middle. The third mic is called mic number 3, gents rear section. We have mic number 1 of the ladies front section right in front of me. And we have one on the side and little on the rear. That's mic number 2 for the ladies section. Yes, may we have the question on mic number 2, gents middle. Yes, brother. Yeah.